بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan jeclaystay inaan halkan idinkula wadaago laba cashar oo aan isiri haddii ay suuragal ku noqoto wax laga yaabaa inay muhiim tahay waayo baahida ardayda ayaan ka dhex dareemay labada cashar hadda cashar baan soo qadimayaa ka kalena insha Allah haddii ay ii suura gasho waqtigii baa runtii qaali noqday waan idin raacin doonaa haddii Ilaahay qadaro waa series and parallel circuits laba cashar bay noqonayaan labada ciwaan aad arkaysaan basically qof kasta oo raba casharkan inuu qaato waxa looga baahan yahay inuu aqoon u leeyahay basic circuits waxyaabaha yar ee basic ah sida current inuu garanayo iyo voltage iyo charge iyo xidhiidhada u dhaxeeya inuu garanayo qaybahaasi waa muhiim halkan laakiin waxa soo dhawaan ka soo boodaya waxaan doonayaa inaan soo yara koobo waa summary waa current waa series circuit iyo parallel circuits inta aanan kuwa u gelin waxaan jeclahay bal inaan xoogaa soo yara koobo waxyaabaha loo baahan yahay qofku marka uu rabo inuu isku xidho circuit ama uu ka hadlo series iyo parallel waxyaabaha qaar baa muhiim ah waxyaabaha waxa kamid ah inuu garanayo symbolska ama calaamadaha midna ay kamid ka yihiin DC source oo kale calaamadeeda waa calaamada bayteriga la qaataa oo dhinaca dheerna plus dhinaca gabana minus loo qaadanayo AC source ka waxa loo qaataa wave ka calaamada mawjada ama wave ahaan ayaad u qaadan kartaa ammeter ka calaamadaas aad u qaadanaysaa voltmeter lamp laambadu iyadoo labada calaamadood bay leedahay resistoradu waa wax kasta oo current-ka joojiya iyaguna laba calaamadood bay leeyihiin calaamadan sokeeyadu waa calaamad hore oo qadiimiya tani laakiin waa calaamad hadda la isticmaalo tanaanan u badanna inaan isticmaalno waa resistorku marka ay tahay fixed LDR ama light dependent resistor calaamadaas ay leedahay diode iyadna calaamadaas ay leedahay switch isaguna calaamadaas uu leeyahay gaar ahaan marka uu furay kuwani waa muhiim inaad garanayso okay series circuit ka dabadan ku horeeyo maxaa la yiraahdaa series circuit waxa la yiraahdaa two appliances on a same path are in series laba appliances waxa la yiraahdaa wax kasta oo isticmaala electricity waa appliances ama circuit ka wixii kugu jiro oo dhan waa appliances laambadaha iyo switchka iyo xarkaha dhamaantood waxaan electricity-gaaga circuit-ka kugu dhex jiro dhan wada appliances haddaba laba appliance oo wada wadaaga ama same path waxa la yiraahdaa waa series wuxuu hadday series yihiin current-kooda ayaa isku mid ah qodobka maskaxda geli mar labadan kugu celiyo labadii appliance ama saddexdii appliance ee series-ka current-kooda ayaa isku mid ah laakiin voltage-kooda uu kala duwan yahay okay hadda labada laambadood tan waa lamp kana waa lamp waa series maadaama ay series yihiin current-kooda waa isku mid waxyaabaha la weydiin karo waxa kamid ah metal inta lagu siiyo lagu yiraahdo waa lamp A iyo lamp B ayaa lagu oranayaa bayteriga current-kiisu waa 2 ampere muxuu noqon karaa current in lamp A iyo current in lamp B current-ka laambada A iyo current-ka laambada B maxay kala noqon karaan jawaabta oo kooban waxa weeye mar haday labadu series yihiin current-ka bayteriga ka soo baxa baa labadaba dhex maraya marka waxay haystaan current isku mid ah ama same current 2 ampere baa labadaba maraya marka waxaad leedahay kana current-kiisu waa 2 ampere kana current-kiisu waa 2 ampere marka current in lamp A waa 2 ampere current in lamp B waa 2 ampere okay hadii lagu yiraahdo circuit-ka qaabkana loo dhigay matalan hadda laambadahani ma series ba ma parallel ba maxaad malaynaysaa jawaabtu waa series waayo they have a same path wada kaliya ay wadaagaan xariga bayteriga ka soo baxa ayuunba saddexdaba isku maraya mar hadduu xarig kaliya ay wadaagaan oo aanu xarigaagu kala qaybsamin hal loop ama hal wareeg ama hal line isuga wada dhex marayo de waa series baa la oranayaa okay haddii lagu yiraahdo laambadaasi waa 3 ampere kalideed ayaa 3 ampere current-ka maraya dibadna lagu weydiiyo what is the total current muxuu noqon karaa total current-kii calculate the current of each lamp xisaabi laambad kasta current-ka maraya okay jawaabta kooban mar haday tani 3 ampere tahay macnaheedu waxa ka dhigan tahay kuwana series bay leeyihiin mid kasta waxa soo dhex maray 3 ampere tana 3 ampere kunba maraya tana waxa haysta 3 ampere circuit-ka gebigiisa waxa maraya waa 3 ampere marka what's the total current baa lagu leeyahay total current waa 3 ampere waayo meesha waxa yaala baa series
waa 3 ampere waxaad xisaabisaa karantka laambad kasta maraya ha ka fikirin inaad tiraahdo waa 3 ampere oo la isu geeyna no karantku series baad yihiin waa isku mid 3 ampere ka xabadaas waa tunba wada haystaan marka waxaad oranaysaa waa 3 ampere each mid kasta waxa haystaa 3 ampere okay calculating current voltage and resistance in series circuit xisaabinta karantka iyo voltageka iyo resistance-ka circuityada series-ka horta resistance maxaa la yiraahdaa resistance waa opposition to the flow of electric current resistance waa iska caabin ama waa joojinta qulqulka karantka qulqulka electriga joojintiisa ayaa la yiraahdaa resistance okay resistance waxa lagu helaa voltageka oo loo qaybiyay karantka calaamad ahaan marka loo qorayo halbeegeeda ama unitkeedu waa ohm calaamad ahaan marka loo qorayo resistance oo r voltage kuna waa v current kuna waa i marka calaamad ahaan loo qorayo waxa kale oo aynu kala soo dhexbixi karnaa inay v du leegtahay i times r ama voltageka ama aan idhaahdo potential difference-ka inuu leeyahay current-ka oo lagu dhuftay resistance-ka okay resistance-ka waxa leh inta badan shay kasta haddana waxa si gaar ah u siila shayada la yiraahdo resistorada ama dab joojiyeyaasha resistoradu way noocyo badan waxa kamid ah noocan hadda halkan aad ku aragto oo la yiraahdo fixed resistors waa caabiye resistor haddaad maqasho waa caabiye resistance-ka haddaad maqashana waa caabiga laftirkiisii ama waa awoodii wax ku caabinayay haddaba resistoradu kan imika waa fixed resistor nooca kale jiro la yiraahdo variable resistor fixed resistor macnaha waa resistor aan resistance-kiisa ama awoodda caabineeda uu leeyahay aan la bedelayn variable resistorna waa resistor resistance-kiisa la bedeli karo ama awoodda caabineed ee uu leeyahay wax laga bedeli karayo okay hadda halkan waxaad ku haysataa laba resistor oo series ah aan idhaahdo resistor 1 iyo resistor 2 marka lagu weydiinayo total resistance-ka total resistance saddex siyaabood taamaha saddex siyaabood oo kale lagu weydiin karaa waxa lagu oran karaa matalan waxaad soo saartaa equivalent resistance waxaad soo saartaa effective resistance waxaad soo saartaa sum of the resistances dhammaantood waxay ka dhigan yihiin waa total kelmadahani waa total equivalent effective sum waa wada total bay ka dhigantay calculate the total resistance equivalent resistance saas lagu weydiin karaa okay total resistance-ka hadaba waxa lagu helaa aan idhaahdo r total oo total resistance taagan waa in wixii series la isu geeyo r1 plus r2 haday fara badan yihiin waad isku wada geenaysaa example 1 calculate the current across each resistor bal waxaad xisaabisaa resistor kasta current-ka dhex maraya hadaba waxaad haysataa laba resistor mid waa 4 ohm midna waa 2 ohm bayteriga ay ku xidhan yihiin waa 6 volt mid kasta current-keedu muxuu noqonayaa maxaa ka horeeya horta intaanad current-ka la soo bixin total resistance waayo current-ka meesha maraya waa current-ka bayteriga ka yimaada current-ka bayteriga ka yimaada unbaa laambad unbaa resistor-kana maraya kana maraya marka that means total current iyo current-ka xabad kamida dhex maraya waa isku mid waayo resistor labada resistorba iyagu waa series waxa kale iyagu series la siihiin bayterigii mar haday bayterigii series la noqdeen r total bad horta la soo labadan total resistance-kooda wuxuu noqonayaa 4 plus 2 waa 6 ohm okay total resistance iyagoo la isu geeyay resistance-kooda 6 ohm buu noqday waxaad leedahay I ama current-ka meesha maraya waxa lagu helaa V divided by R V waa 6 ohm labadan la isu geeyay R toodina waa 6 marka 6 divided by 6 na waxay noo soo baxaysaa 1 ampere that means 1 ampere baa bayteriga ka soo baxaya 1 ampere kaasoo baa tana dhex maraya mid kasta marka current-ka ay haysataa waa 1 ampere mar haday series yihiin same current each has 1 ampere example 2 bal circuit-kana doo fiirso waa laba resistor mid waa 4 ohm midna waa 2 ohm R1 ama resistor 1 current-ka waa haystaa waa 2 ampere kan laakiin R2 unba halka ku qoran wax kalena ma hayo su'aalaha la weydiiyay wax kamid ah calculate the voltage across R2 xisaabi voltage-ka R2 maray waa ka voltage-kiisa la inaga rabaa okay san voltage-kiisa waxa loo waa inaan hal qodob xasuusnaana labadani waa laba resistor oo series ah maadaama ay series yihiin current-kooda waa isku mid
hadda tana lagu siiyey currentkeedii waxa lagu yidhi waa 2 ampere macnaheedu tana currentkeedu waa 2 ampere mar haddii markaa tan currentkeedii mar haddaad hayso currentkii iyo resistancekii currentkii 2 ampere waayo isku mid baan ku yidhi currentku iyo resistancekii 2 ohm ah voltageka maxaa lagu heli jiray voltageka waxa lagu heli jiray I times R ama currentka oo lagu dhuftay resistanceka dee currentkiina waa waxa weeyaan waa 2 ampere resistancekiina waa 2 ohm isku dhufo marka waa 4 volt b da waxa lagu yiri what is the total potential differences muxuu noqonayaa isku darka voltageedu potential difference waa voltageka tan voltagekeedu muxuu noqonayaa horta tan voltagekeeda soo saar maxaa dhahdaa v waa IR soo maaha I deedina waa 2 R teedina waa 4 isku dhufo waa 8 volt tan voltagekeeda wadigan soo saaro waa 4 volt v total marka waxay noqotay 8 plus 4 de labadoodna labada voltage isu geysan weeyay waa 12 volt labada exercise adigu si degan oo akhri dabeetana ka shaqeey